السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wala isfikram maanta waxaan dhammaystiraynaa sexual assault iyo sexual harassment aan kala bixinay last week so maanta waxaan ka hadlaynaa sexual assault and sexual assault horta kelmada assault la dhaho waa weerar qofka markii weerar ay qofku soo qaado so sexual assault is basically markii dumarka ama haweenka weerar oo lagu soo qaado so dadka badankood like even Mareykanka waxay kala kasaynin sida loo kala bixiyo kelmada oo sexual assault la dhaho iyo rape micnaheeda so waa laba kelmad assault iyo rape labay kala yihiin rape waxa waaye markii oo qofka la kufsado basically like rape haddaa maqashid isla markii kufsashaa la dhacay galmaa dhacday and then assault waxa waaye qasab ma aha inay qofka inay galmad dhacdo si qofka u dhahdo waa lay assault garay so basically waxaa dhici karta qofka inuu qof soo damcay oo isku day inuu xoogo laakiin muusan xoogin like ilaa heer oo galmo ay ka dhacdo muusan gaarin qofka so taas assault aa dhaha haddii ay qofka masalan ku taabato jirkaaga assault waaye haddii qofka gadaal ay ka dharbaxdo assault waaye haddii oo waxaa caruurta يعني markii oo laga hadlayo child abuse-ka caruurta oo sexual assault garay waxa waaye haddii qofka taabata si xun haddii like yani qofka jirkiisa meel ka mid ah haddii la taabto assault waaye Mareykanka joogna anaga so Mareykanka afartii naagba hal naag sexual assault especially kuwa groupka ilmaha oo jaamacadda dhigtaan da'da oo jaamacadeedka afartii gabarba hal gabar waxay experience garaysaa sexual assault ama inaa xataa heer oo qof inay isku dayda inay kufsato ee dhacda ama la kufsadaa nimanka 17 ninba hal nin ee dhibaatadaas ayta soo gaartaa sidaan dhahnay kufsashaalka ama assaultiga naagaha le kuma dhacdo ama gabdhaha raggana way ku dhacdaa waddankaneeto so 17 ninba hal ninaa la kufsadaa caruurta markii loo fiiriyo afartii gabar again hal gabar oo 18 jir ka yar waxay la kulantaa amna la xumeeyo la far xumeeyo basically assault markii la far xumeys ku jiro soo far xumeys waaye iyo and then lixdii wiilba hal cunug hal wiil oo 18 jir gaarin wuxuu waxa soo gaartay dhibaatada oo far xumeyska ama assaultiga ama rape-ka 75% dadkaas caruurtaasayto oo la farxumeynayo waxay ka imaadaa familka dhexdiisa dad ku jiro so badanaa markii oo xataa ardayda gabdhaha la xoogaayo ama nimanka la xoogaayo qof oo stranger ah oo banaanka imaada ma xoogto most of the time 90% oo dadka waaweyn markii qof ay qof xoogto waxa waaye qof ay taqaano oo ama famil ka mid ah ama daris ka mid ah ama saaxiibkooda ka mid ah way qofka oo xumeynayso and then markii caruurta la dhaho 75% qof oo familka dhex mid ah ama qof oo cunugaas ay caregiver u xumeyso so marka la fiiriyo dhinaca dhibaatooyinka oo qofka soo gaarto oo xumeyntaas ay dhibaatooyin badan qofka soo gaari karto mid waxa ka mid ah masalan qofka inay heer oo waxa gaarto inay anger inay qaado xanaaq u qaadaysa ama ciil ay u qaadayso familkeeda dadka oo ahay inay qofkaas protect garayso saaxiibadeed ha ahaadaan familkeeda ha ahaadaan haddii caruur tahay qofkaas weyn oo inuu qofkan badbaadiyo uu ilaaliyo laga rabo caruurta bisaad markii oo dhibaatadaas ay soo gaarto waxa xanaaqi waxay u qaadaan hooyaday ma ay ammaan gelinin ama ma ay protect garaynin aabahay muusan i protect garaynin qofkii laga raba inay badbaadiso inay ilaaliso inay dhibaatooyinka iga xigsato ma ay waajibkood ma kasoo bixin waxaa sidaas darteed la ii xumeeye waay mida kale waxaa jirto guilt ay dareemayaan which is dembi qofka dembi inay dareemayso dembiga waxaa keenayo a lot of times caseska badankood markay dhibaatadaas dhacdo especially haddii caruurta ku dhacdo inay sheegin qof u sheegin the reason ay qof u sheegin waxa waaye because number one cunug yar haddaa tahay intay ka bilaabay horta mawduuca oo waa lay farxumeysay ku furaysaa iyo xagee intay sidee ku bilaabaysaa mid waaye mida kale waxa waaye
qofka dembi oo waxay dareemaysaa haddaan sheegi lahay maybe inaa wax la ii qaba lahay laakiin anima sheegin so anaa isku keene and maybe waxay dareemay anaa rabe ma rabe waxaaseeta inaa lagu sii suubiyo waay u aamusay aan u qarsade and then so naftooda eedehaayaan ama nafta dad kaleta eedeynayaan and then there is like shame a sense of shame and kelmada shame la dhaho qofka inay ceebeysan tahay camal ay dareemaysaa inay qof xun tahay inay wax xun suubisa inay يعني كلمة shame I don't know sida kugu soo deliver garay but shame calaamad waxa waaye basically ceeb camal ay qofka dareemaysaa and then dhibaato qof dareen oo aad iyo aad culus waaye oo qofkii oo shame la diil garaysa dhibaatooyin badan ay kagala imaadaan and then of course there is cabsi because qof kasta oo lagu soo xadgudbo waxay dareentaa aaminaada ka tagto so markasta waxay qof ka cabsanaya ama u malaynaysaa mar labaad way dhici kartaa mar kale haddii lagu soo xadgudbo you know markaasba waa laygu xadgudbay waa lay faraxumeeyey ama waa lay xoogay ama saanaa dhacday so yaa ii aamin gelinaya inay mar kale igu dhici karin so taas dhibaato kale ee dadka la kulmaan waaye iyo walwal and then something waxaa jirta wax oo la dhaho qofka waxay dhib ku noqonaysa inay manage garayso dareenkeeda inay dareenkeeda si ay oo la macaamilowtay ka siwaanaysaa soo xanaaqan badan ciilkan badan shameka waxay ku samaysaa markay ka siwayso qofka waxay suubisaa wax oo maladaptive behavior la dhaho maladaptive behavior waxa waaye basically qofka inay ma jecli dareenkaanayta soo wax kalan suubina oo dareenkaanayta ilow siiyo and waxay noqon kartaa khamri iyo darooga inay isticmaasho waxay noqon kartaa inay qofka korkeeda jarjarto so self injurious behavior aan dhahnaa dad badan suubiyaan oo qofka inay jarto hadda gabar aan la shaqeeyo filmaadkoo dadka xunxun ay fiirsata dadka xunxun ma like filmaadkoo dadka waaweyn ay fiirsataa because waxay dhibaatadii ee soo martay markay ku fikirto marabta inay ku fikirto soo maxay suubihaysaa waxa يعني كوبنا ونقده سيدي أولا دي الجريه سوا حول نقده في المال دتك وين فيرسو وحيابا أو حوج أما وحيابا أو حوج يقف سحن لو أقمعيو إني فيرسو توسي هذا أوكي at least أنا سان مهين وحيجة you know وكا like وكا يراي عمل سمينيسا and then dhibaatooyin oo orso waxaa jirta qof markay weynaato relationshipka oo iyada iyo ninkeeda camal xiriirkaaseeta inuu wax dhibaato soo gaaro allah raftamis waxaa jirta markii oo gabdhaha oo dhibaatadaneeto ama traumada oo xoogida ama farxumeynta soo mareen markii xiriirka ninkooda la yeelanayaan inay markasta ninka isku soo dhawaadaan inay xasuus ama sabir oo indhahooda soo hor istaaga dhibaatada ay soo martay taasna waxa waaye dhibaato waxay adkeynaysaa relationship fiican inaa ninkaaga la yeelatid because haddii aadan ahaa karin qof oo degan oo you know xiriir ninkeeda la rabto oo ku faraxsan xiriirkaaseeto oo walwalkaaga kor u kacayo markasta aa isku soo dhawaatiin then dhibaatay keenaysaa so anoo hadalkii hadda idinku soo dheerin waxaa raba inaan clarify gareeyo sexual assault waxa uu yahay ama xadgudubka ama kufsashacabka ama faraxumeynta waxaas dhan waxa waaye hal wax waaye oo hal umbrella la hoos dhigay oo sexual assault la dhaho waana badan yahay wadankan aan joogno marka haddii lagu dhaho hashiibo afartii gabarba hal xabaa la kufsadaa ama halis u noqoto inaa la kufsado number badan waaye mida kale anaka waa ku jirnaa wadankanayta waa la noolnahay gabdhaheena ku korinoona iyo caruurteena so hooyooyinkii aabayaalka inaa ilmaheena kala hadalno waxyaabaha oo especially kuwa yaryar because xataa macalimiintooda ma isku heli kartay dadkan gaaladaanayto so inaa caruurta lagala hadlo waxa saxa waxa qaladka xadgudub muxuu yahay jirkaaga xag inaa la taaban karin magacyada jirka qof cunugtaada inaa bartid si oo la socoto wixii sax iyo wixii qalad qof hadduu xadkiisa soo gudbo inay dhihi karto hooyo maanta saasaa dhacday ama aabasaanaa dhacay ama xataa qofka inay dhihi karto dib igaga noqo ha ugu soo dhawaanayne so ilmaha inaan barno waaye inaa indhaha u kala furno waaye waa ka cabsanaa anaka inaa ilmaha indhaha u kala furno ama mawduucyaalka qaarkood aan kala hadalno because waxaan dhahaynaa waxay arkeen inaan kusoo jeedinaynaa laakiin reality is wax kastoo dhinacyadoodu yaallaa meel kastoo yaallaa so waxaa fiican inaa anaka indhaha u kala furno aan barno intii ay jidka soo bara lahaayeen